بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة أن إن شاء الله وقت أن بدنين دي رب حكومه waxaan isku dayi doonaa inaan wax ka sharxo mowduucu sheekh cabdilqaadir tilmaamay oo ku saabsisnaa ilaalinta ama badbaadada dhallinyarada waa mowduuc runtii muhiimaddiisa leh waayo ubadku ama dhallinyaradu waa mustaqbalka bulshada waana waxa dhaxla ummaddu diinta iyo dhaqanka iyo waxay aaminsan tahay innagu waxaynu ku nool lahay mujtamac lagu tilmaamayo inuu yahay multicultural society ama mujtamac mutacadidi thaqaafaatah mujtamac diimo dhaqamo aragtiyo kala gedisan haysta mujtamacaadka caynkaasi u noolla waxaa la yaqaanaa alaqlabiya aw alakhariya ama dadka majority groupku inay yihiin dadka dejiya nidaamka nololeed ee bulshadu ay yeelanayso hadduu yahay nidaamka tacliimiga lagu tababarayo ilmaha mustaqbalka la rabo inuu soo baxo hadduu yahay miidiyaha iyo sistamka waddanku uu leeyahay ee afkaarta lagu faafiyo hadduu yahay qaanuunka waddanka u degsan waxaasoo dhammi waxa ay tilmaamayaan qaabka ummaddu ay u jirayso sida awgeed mujtamac kasta dhaqankiisa iyo aragtiyihiisa iyo wuxuu aaminsan yahay aghariyada xukunta oo dadku muxuu mustaqbalka noqonayaa dee waxaa takhdiidkaasi dejiya ama planninka waxa sameeya dowladda iyo cidda maamulka u haysa inkastoo la yidhaahdo duwalku waa xor oo bulshooyinku waa bulshooyin liberalism oo xor ah oo qofku wuxuu doono uu aaminsan yahay oo wuxuu doono uu samayn karo oo suu doono uu fakeri karo laakiin haddana waxaa jira waxa la yidhaha mainstream oo iyagu qaabkay noloshu noqonayso iyo dadku siduu u fakerayo iyo waxa uu cunayo iyo waxa uu cabbi iyo wuxuu noqonayaba maamulo oo ka taliya ciddaa ka baxsani waa cid shaada marka imaa in qofku uu bulshada ka tirsan yahay mainstreamka ama main groupka ama majorityga ama inaad ku tahay minoritiska ka tirsantay minoritigu waa aqaliyaad waa dadka laga tirada badan yahay ama diin ahaan ama dhaqan ahaan ama af ahaan wuxuu doona ha ahaado innagu markaynu waddannadan reer galbeedka joogno markaa ka mujtamac soomaaliyeed ama ka mujtamac muslima minority baynu nahy minority groupskaynu ku jirnaa dad yowga laga tiro badan yahay ma suurtagal tahay markaa inaynu surviveno ma suurtagal tahay inaynu noolaanno nolosha kama warramayno afrika markii la joogayo meelahaasi ma suurtagalta in la noolaado nabadgelyada iyo waxa la cunayo iyo baabkaasay ahayd laakiin halkan marka la joogo waxa weeyaan inaan noolaannaa suurtagal mar tahay markaynu ka warramayno biologically inaan u jirro ka warrami mayno oo midabkaagoo kale sita inaad dhasho ama dad adiga ku eegag inay kaa tarmaan kaa kama warramayno waxaan ka warramaynaa ma noolaan karnaa ma jiri karaan waxaynu rumaysnayn afkaynu lahayn dhaqankaynu haysannay diintaynu haysannay inagoo halka joogna ma jiri kartaa waxay yidhahdaan bulshooyinka laga tirada badan yahay dunida cusub ee maanta laba waddo midunba u furan
waddo dowladuhu juhdi badan kuma bixiyaan oo waddadaa haddaad qanacdo waa waddada assimilation inaad milantid waa waddada mainstreamka inaad ku biirtid xaggu u socdo markaa waad maydhantay mainstreamka haddaad ku biirto macnaheed waxa weeyaan dhaqankooda waxay rumaysan yihiin waxay arkayaan say u hadlayaan say u dhaqmayaan say u fakerayaan say u jirayaan baad ka tirsanaanaysa ama maaha inaad noqoto minority group mintida oo ilaashanaya wuxuu rumaysan yahay iyo afku ku hadlayay iyo luqadiisii iyo waxaasoo dhan ilaashanaya haddaad noqoto minority group markaa ilaashanaya wixiisii oo isku dayaya inuu afkiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa ilaashado waxay u baahan tahay xoog badan bay u baahan tahay xoog ka badan kii balliga sooma taqaaniin ama harada yar qofka ku dabaal barta haddaad oo balli ku dabaalan jiray aad tidhaahdo badweynta hallay dhigo waan soo badbaadayaaye waa adagtay dabaashii balligu inay kaa soo saarto badweynta inay kaa soo kaxayso halkani waa badweyn waxay ku tahay dee mainstreamka kaa soo hor jeeda mainstreamkaydan isku mabda iyo caqiido rumaysnayn mainstreamkaydan isku aragti arkaynin su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaa ma dabaalan karnaa inaynu dabaalannaa maxay u baahantahy yacni inaynu dhallo ubad soomaaliya oo muslima waxaynu jecellay waa caynkaa waxaynu rabnaa waxaynugu tafiirmayaa inay noqdaan dad soomaaliyeed oo muslima ama kala horraysiyo dad muslim oo soomaaliya dad diintoodiina haysta dhaqankoodiina haysta taasi maxay u baahantahy baa isweydiin le markaynu maxay samaynna baynu dadkaa dhali karnaa ama hayn karnaa ama wadi karnaa waxaan leenahay dhowr shay baynu u baahannay koo waxaynu u baahannay inaynu fahamno waaqacaynu ku noollay bulshada aynu la noollay inaynu si fiican u garanno waxay taasi inagu saacidi doontaa maxaynu qaadanaynaa maxaynu ka tegaynaa maxaynu isku khilaafsannay maxaynu isku waafaqsannay idan bulshada waa inaynu si fiican u daraasaynaa ka labaad waxaynu u baahannahay atasallux aljayid waxa aynu rabno inaynu ahaanno inaynu si fiican ugu hubaysannahay hadday diin tahay hadday dhaqan tahay hadday af tahay inaynu ka dheregsanno si fiican ugu hubaysnaanno waa ka saddexaade waxaynu leenahay waxay u baahantahy dadaal mujaahada dadaal bay u baahantahy iyo xoolo iyo hanti iyo wakhtiba inaynu bixinno si aynu u badbaadno warkoo iska kooban waxaynu leenahay qofka bini aadamka ahi marka hore waa xoran طaliiq ilaahay baa saa u abuuray fii asli tasarufaati waa mukhayar waa mukhtaar waa qof doorta laakiin yata'ahar wa yu'ahir waana la raadaynayaa oo daqdiga ama culayska bulshada iyo qaabkay wax u wadaa wuu raadaynayaa isna wuu raadayn karaa bulshada hadduu yahay qofkii loo baahnaa nolosha dhammaanteedna waa ibtilaa'ba nolosha dhammaanteed waa imtixaan waxay leenahay marka waxay dhahaan qofka bini aadamkahay waxa uu yahay waxa uu cuno waxa uu arko waxa uu maqlo ayuu qofku yahay bay yidhahdaan maynan caqli lahayn may caqli waa leenahay laakiin caqliga dee looma waxyoodo dhegtiiyo ishaa wax ka galaan caqliga waxaasuu taxliiliyaa eegaa laakiin waxii kuma soo degayo markaa waxa aad tahay waxa aad cunto jidhkaagaa ku koraya waxa aad maqashana iyo waxa aad aragtana maskaxdaada taxliil ku samaynaysoo sawirka ay nolosha iyo aragtida iyo dunida iyo aqoonta iyo wax walba ka haysataa waa intaasi iskuulka iyo waxbarashada iyo jaamacaadku
waxaad maqlaysa iyo waxaad arkaysa unbaa la badinaya inaanay noqonin intan markaa ku hor taagane in lagu maqashiin karo taariikhdii bini aadamku waxay soo ahayd, in lagu tusi karo aqoonyahanadii hore wixii ay qoreen ama waxay ka tageen. laakiin soo duuduuba waxaa tahay waxaad aragto iyo waxaad maqasho iyo waxaad cunto ayaad ka kooban tahay. waxay idhahdaan dowladahan dambe xadiidka ah qaabkay u dhisan yihiin fii ra'yi way ka shumuulisan yihiin qaabkii ay u dhisanaayeen dowladihii hore. dowladihii hore intay xukumi jireen wax yar bay ahayd, gacanta dowladda waxa ku jira wax yar buu ahaa. xoogaaga cashuure uu dadka ka qaado, xuquuq badanba dadku iyo yeelanin, ciidamadiisa iyo intaa, laakiin dadku noloshooda kaloo dhan xor bay u ahaayeen. waagii hore dowladdu say ahaan jireen. dowladaha dambe ee iyagu xorriyadda sheegtay everything gacantay ku hayaan, everything. waddannada qaarkood baa magaca lala baxaa buug buu leeyahy oo magaca intaa ka baxsan lama bixi kartid. magacada qaar ayaa lagu leeyay waa family nace, lama bixi kartid. marka xataa magacaad ilmahaga u bixinaysaa waddannada qaar buu yahay maxduud. wax walba waa underlow. markaa waxay dhahdaan noloshu markaa ama waa in waxbarasho raadaysaa, meesha wax lagu barto waxaa loogu talagalay bulshada in la isku milo oo siyaasadday dowladdu doonaysaa inay ka soo baxaan dad rumaysani. bulshadoo dhan inta la ysku milo oo la tawjiihiyo, gurigaa doonta ka kaalay, ama guri afrikaan ka kaalay, ama guri carbeed ka kaalay, ama guri kristana ka kaalay, ama mid muslima ka kaalay, ama mid waxaa ka kaalay. waxaa la rabaa madaxaaga in si loo foomgareeyo bolisiga dowladdu uu raalli ka yahay. saa daraaddeed waa compulsory education. inta hore compulsory muxuu noqday? marka la falsafadayna waxa laga yaabaa in la yidhahdo dadkaa la rabaa dhammaantood inay wax akhri karaan, wax qori karaan. waxaad akhriyaysa iyo waxaad qoraysaa waxa weeyaan dowladdu waxay sheegaysaa inaad fahmi karto, waraaqday ku soo dirto inaad garan karto, siday u fakeraysa inaad garan karto, siyaasiyiintu waxay sheegayaan inaad garan karto, akhri karto. waa in lagu waamuli karo, waa in lagu wadi karo. haddaanad waxna qorin waxna akhriyin cidna ku wadi kari mayso, laakiin waa in lagu wadi karo hadhow. idan schooling systemku wuxuu u dhisayay bulshada in la isku milo. ra'yil caamka dadweynaha waxaa sameeya miidiya sameeya, waa la bisleeyaa. wixii la doonaya kasta bulshada waa loo bislayn karaa. intaa wixii ka baxsan ee geese ee ka dheerdheeraada qaanuunkaa toosiya. dad slow baa lagu leeyahay. haddaad qanci weydo waxa kaloo dhan ku mari waayaan, akhiiran waxay imanaysaa in lagu dhaha that's the law you should follow. qaanuunkaasaa dhigaya, marka waddo kale ma bannaana. wixii soo hadhana qaanuunkaa lagu toosiyaa. bulshada caynkaasi aduu waxbaad rumaysantay. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi natay. dadku ilaahay leeya waxaad tihiin dadka u khayr badan ee bini aadamkaba loo soo saaray. caqaa'id baad rumaysantay. lagu leeyahy dadka kale waxaa ku tidhaha lakum diinakum waliya diin. qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun. soo maara kasta ma akhridaan. waxaa caabudaysaan caabudi maayo, anna waxaa caabudaya caabudi maysaan. akhiiran lakum diinukum waliya diin. idinku tiinaa leedan anna taydaan leeya. waxaynu haysannaa waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan. haddaba mainstreamkuna saasuu yahay. innaguna caqaa'id kalaynu haysannaa. sidee baynu uga badbaadi karnaa? inteenna u badani mainstreamka caqiidadiisa ma naqaano. maalan schoolinka iyo tacliinta sare iyo jaamacaadka iyo waxa jooga, waxaan odhan karaa intooda ugu badani waxay u badan yihiin diin laawayaal. kristanna maaha, yuhuudna maaha, muslimna maaha. inta u badan dadka wax dhiga siiba jaamacaadka iyo dadka jooga waxaa ku badan caqiidaydka ah maxay? ama waa atheism, ama waa abathism, ama waa agnostic,
ama waa ignostic ama waa skeptic ama waa pantheism waxaasoo dhamme oo caqiide uuna ah soo duuduubo ilaah ma jiro un ka duulaysa iyaga differencekoodu marka la sharxayo wixii doonaa ha u dhexeeyaan maan rabo inaan iyaga ka warramo lakiin waxaan tilmaamayaan waxa weeyaan waxaasoo dhan marka laysku soo duuduubo mainstreamku waa caynkaa sidee baynu ubadkeenna ugu dhex badbaadin karaynaa meesha caynkaas iyo markaa mainstreamkaasi xad buu gaadhsiisayay diin dadka loogu yeedho ay tay yani waxaan xasuustaa sheegaa baska nacasee london dhex mara iclaanaadka ku dhejisnaan jiray waxaa ka mid a iclaan sheegaya ayay qoladaasi leeyihiin lacagta ay bixiyeen dowladda hoose waa ugu dhejisay london basas baa dhex maraya ay ku qoran tahay there is probably no god stop worrying and enjoy your life waa london baskaa weyn maaha wax qarsoon ee suuqa maraya ayaa dheegiisa waxaa ku qoran ilaah ma jiro warwarka joojiyo noloshaada maaragtay enjoy garee dhaqankaasay ilmuhu joogaan waxaana nidhi waxay maqlaan iyo waxay cunaan iyo waxay arkaan iyo waxa loo sheego weeyaan weliba intaa waxa dheer qofku marna wuxuu malakada wax kala sooca u dhisan tamyiiz baa u dhisan marna uma dhisna ee halku ku bilaabay aduu waxaa timi adigoo maskaxdaada already wax ka buuxaan adigoo ilaah rumaysan oo rasuul rumaysan oo nebi maxamed rumaysan oo qur-aan rumaysan oo diin rumaysan oo af soomaali garanayo oo dhaqan loo wax sax u yaqaano wax qalad u yaqaano aduu kaasaad ku timi laakiin halkan ilmaha ku dhashay nersarigaa uga bilowday ilaa jaamacadda galay waxaaba cidi uma sheegin inaad waddo waxaad waddo dhan cidi uma sheegin sidee baan u ilaalin karnaa haddaba waa masale runtii aad u adag fududna ciddii aan lagu fudaydiyo ilaahay wuxuu leeyahy qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiina laa shariika lah wabidalika umirtu ana min almuslimiin nebi maxamed waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii waxaad tidhahdaa aniga salaadaydu iyo gowracaygu ama cibaadaadkayga oo dhamme noloshayda iyo geeridayda ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala muctaqadkaasi ma gudbin karaynaa qofku haddii la dhiso oo uu muctaqad ahaan dhisan yahay qofku haddii la dhiso uu muctaqad ahaan dhisan yahay wuu survive garayn karaa ilaa xaddin ma wuu noolaan karaa walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa dad meelo adag galay oo badbaaday maalan nebiyullaahi yuusuf baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya nebi yuusuf oo isagoo ilmo yare duul gaaleed la noolaaday oo haddana badbaaday laakiin nebi yuusuf caqiidu haystay wuxuu ku badbaaday waa kaa innii taraktu millata qowmin laa yu'minuuna biاllaah wuxuu ku badbaaday nebi yuusuf wuxuu leeyahy waxaan ka imi millata qowmin laa yu'minuuna biاllaahi wahum bilaakhirati hum kaafiruun waاtabactu millata aabaa'i ibraahiima waisxaaqa wayacquub ma kaana lana an nushrik nebiyullaahi yuusuf wuxuu leeyahay isagoo yar anigu waxaan diiday diinta dad gaalo ah oo aan aakhiro rumaysnayn waxaan raacay buu leeyahay diintii aabbayaashay ee yacquub oo ina isxaaqa oo ina nebi ibraahim ambiyadaasaan ku abtirsadaa kuwaa diintoodii baan haystaa buu leeyahy dhallinyaru ahaa waayo qur-aanku fata inuu yahay buu ku isticmaalaya waata gabadhii dumarku maxay lahaayeen waqaalat niswatun fi lmadiinati imra'atu alcaziizi turaawidu fataaha can nafsi qad shagafahaa xuba inaa lanaraaha fii dalaalin mubiin markii ay dumarku rabeen inay kufsadaan ee dhibta u geystaan
qur-aanku wuxuu tilmaamaya inay haweenkii magaalada joogay yidhaahdeen imra'atu alcasiis turaawidu fataaha, ninkii madaxda ahaa gabadhiisii waxay raadinaysaa inankeedii yaraabaa hunguri ka galay oo way caashaqdo way jeclaatay. idan fata buu ahaa, laakiin wuu badbaaday. maxaa badbaadiyey? waxaa badbaadiyey caqiidadatan. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya koox dhallinyaro ah oo bulshaday ku jireen oo dhan ka tegey, oo weliba culammadu waxay idhaahdaan min alqusuuri ila alkuhuuf bay u socdeen bay idhaahdaan. dhallinyaro dabaqada sare ka tirsan bay ahaayeen, yacni dabaqada waddanka maamushaa dadkay dhaleen bay ahaayeen. laakiin markay ogaadeen inaan caqiidadoodu sida tan ku badbaadaynin, dowladdii iyo wixii oo dhan intay ka tageenba waxay doorteen inay god degaan oo ka tagaan. ilahay wuxuu qur-aan ku tilmaamayaa innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda. waxay ahaayeen baa ilahay lehay fitya, dhallinyaray ahaayeen. aamanuu birabbihim, dhallinyaro rabbigood rumeeyey bay ahaayeen, oo annaguna aanu hanuun u kordhinnay. warabatnaa calaa quluubihim id qaamuu, ilaahay baa wuxuu leeyahy qalbigoodana waannu u xidhno, waa u adkaynay markay ku dhawaaqayeen rabbunaa rabu الsamaawaati waalardi lan nadcuwa min duunihi ilaahan laqad qulnaa idan shatata. markay ilaahay rumeeyananana waa u xejinnay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. fitanka iyo imtixaanka waa ka saaray. qur-aanku wuxuu ka warramayaa nin dhallinyaro ah oo ka hor yimid tolkii wixii ay haysteen, oo si uu xujada ugu ogo asnaamtoodii badh burburiyey badhna ka tegey. fii nadari, hadday masaladu tahay lilamri waalmacruuf in asnaam la burburiyo, hadday masaladu tahay dhammaantood wuu burburin lahaa baan u malaynte. laakiin inuu xujo ku ogo daraaddeed kii u weynaa buu ka tegey. nebiyullaahi ibraahim maxay yidhaahdeen? qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahiim. waxaanu maqallay wiil xusaya oo ka hadlaya sanamadatan oo la yidhaahda ibraahiim ayaannu maqallay bay leeyihin. nin dhallinyaraa buu ahaa, tolkii iyo qoomkii wixii ay haysteen wuu ka hor yimi isagoo sida tan rumaysan. nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadii rumaysnayd dad badan oo dhallinyaraa baa ku jiray. dhallinyaradaasi way ka hor yimaadeen tolkood wixii uu haystay. iyagoo dhallinyaraa baa ilaahay rumeeya. sida ogeed baa ilaahay wuxuu tilmaamaya, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya isagoo dameer fuushan ayaa nin dhallinyaro ah la soo raacay oo mucaad la yidhaha, mucaad ibnu jabal. mucaad waxay culammadu sheegaan 12 jir buu ahaa markii islaamku soo gaadhay. dee waxaa baanu dhintay isagoo 30 jir ah. mashaahiddii nebiga dagaaladu galoo dhanna waa raggii ka qayb galay. nin dhallinyaraa buu ahaa, waxaanu ahaa nin dhallinyaro oo qoon fiican leh, oo axaadiista qaarkood ay ku tilmaamayaan aclamu almuslimiina bilxalaali waalxaraam inuu isagu ahaa, yacni faqiih lumma inuu ahaa. mucaad oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dameer ay wada saaran yihiin ayuu nebigu mucaad u yeedhay. yaa mucaad buu ku celiyey. labayka wasacdayka buu yidhaaha, ku ajiiba ilaahay rasuulkiisiiyow. waxba uma sheegin nebiga, waa iska socdeen. muddo markay socdeen buu nebigu haddana ku celiyey, u yeedhay. haddana waxba uma sheegin, acbaar baa la yska socday. acbaar markii la socday buu haddana nebigu u yeedhay 3 jeer ama 4 jeer markuu u yeedhay kadib. waa yacni waa ariiq min turuq atacliim bay culammadu yidhaahdaan. waxaa la rabay mucaad inuu soo wada jeesto wada dhega noqdo, inaan hadalka soo socdaa si fudud u dhaafin. yaa mucaad buu nebigu ku yidhi atadri maa xaqu llaahi cala alcibaad? ma taqaanaa ilaahay xaqa uu ku leeyahay addoomaha? ilaahay xaqa uu addoomaha ku leeyahay. dunidan aynu maanta joogno in badan waxaa maqashaan xuquuqda bini aadamka, xuquuqda dumarka, xuquuqda caruurta, xuquuqda dhirka, xuquuqda xayawaanka, xuquuqda environmentka. weligiin ma maqasheen waxa ilahay xaqiisa ka warramaya? ambiyada waxaa loo soo diraa inay xaqa alle ka warramaan. hadduu xaqaasi saxmo, xuquuqda ka dambaysoo dhammina si fudud bay u saxantaa. hadduu xaqaas la waayo uu qaldamo,
xuquuqda damboo dhammi takhabud baa ku dhaca waa legdan maalina raggaa sarreeya maalina dumarkaa sarreeya kolba qoladii xoog badata hadday feminist groupka qaanuun ku xoog bataanna iyagaa xuquuqda u badsanaya hadduu dee raggu ka xoog batana isagaa waa loolankaasi un idan noloshu waxay loolanka ka baxdaa marka loo daayo rabu samaawaat inuu isagu maamulo isagaa markaa cid walba xaqiisa siiya tilmaama xayawaanku xaqaasuu leeyahay diintu waxay ka warramaysaa xayawaanku xaquu leeyahay environmentku xaquu leeyahay bini aadamku xaquu leeyahay dumarku xaqay leeyihin carruurtu xaqay leedahay waxoo dhan ilaahay baa ka warramay laakiin waxaasoo dhammi waxay farac ka yihiin markuu xaqa koowaad sugmo xaqa koowaad waa maxay waa xaq ullahi subxaanaه wa tacaala walidaalika nebi moxamed mucaad wuxuu u tilmaamaya mucaad ibnu jabal calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeya atadri ma xaq ullahi cala alcibaad mucaadow ma taqaanaa xaqa ilaahay addoomihiisa ku leeyahay saxaabadu dhaqankoodu wuxuu ahaa iyagoo nebiga ixtiraamay xataa masalada hadday garanayaanna waxay odhan jireen allah warasuuluhu aclam alla iyo rasuul baa garan dabeetana nebigu wuxuu u sheegay xaqa alla leeyay waxa weeyaan in keligii la caabudo waan cidna loogu shirig yeelin in keligii waad mahadsantahay la yidhaahdo dunidan iyo waxa jooga iyo jiritaankeeda iyo nolosha oo dhan isagaa iska leh free baanu kugu siiyey mujarad iyo mahad celi buu ku yidhi cid kale iyo aaliha kale iyo asnaam kale ah u mahadnaqine anigoo qura igu mahadi laakiin waa qaliilu min cibaadiya shakuur baa ilah yidhi waxa yar ilaahay inta u mahadnaqda cibaadadani waa ilahay inu leenahay alla waad ku mahadsantay awaamirtiisa haddaad adeecdo wuxuu ku yidhi dunidan anaa iska leh free baanan kugu siiyey bishardi waaxida shardigu waa maxay waxa weeyaan qaanuun baan u dhigay qaanuunkaasi un raac kitaab baan soo dejiyey sheegaya dunida saa loogu noolaanayo weliba qaanuunku waa limaslaxatik baa ilaahay ku leeyahy adigu dantaada yahay sidii u fiicnayd aad u noolaan lahayd intaa haddaad raacdo datsool waad haysataa inaad noloshan saad doonto markaa u isticmaali kartid marka ilaahay xaqiisi waxa weeyaan in loo ictiraafo xuquuqdiisaasi mucaad binu jabal nebigu wuxuu sheegay marka xaqullaahi cala alcibaad waa sida tan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam si awgeed buu iyadoo mucaad buu intuu gacanta ku dhegay buu wuxuu yidhi mucaadow wallaahi innii la uxibuk ilaahay baan ku dhaartay mucaadow waan ku jecelay buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ee ha ka tegin salaad qura dabadeeda inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ilaahu igu kaalmee cibaadadaada iyo mahadnaqaada iyo cibaado wanaajinta ilaahu igu gargaar ilaahay baryadaa weydiisa buu nebigu ku leeyay calayhi الsalaatu wasalaam salaad kasta markaad tukato ilaahay baryo baryadaa weydiiso maalin maalmaha ka mida nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa soo raacay wiil yaroo 10 jira oo ilmaadeeriyiin cabdillaahi bnu cabbaas yaa ghulaam buu ku yidhi nebigu aleyh ghulaamka inta badan waxaa la yidhaahdaa qofku intaanu qaan gaadhin ee uu xaddu tamyiiska meelahaasina soo dhaafay nebigu wuxuu ku yidhi yaa ghulaam war wiilow buu nebigu ku leeyay calayh isalaatu wasalaam ma kuu sheegaa weedho ku anfacaya waa nebi maxamed oo rasuulkii ilaahay alla soo diraya iyo wiil yaroo wada socda oo xawaali 10 sanawaat meelahaasiya nebi maxamed wiilkan yar buu la hadlayaa markaa wiilka yaraa buu u yeedho wuxuu leeyahay war wiilkan yarow war wax ku anfaca ma kuu sheegaa buu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxay anfacay sheeg xadiidka macruufka aynu naqaana 40ka ku yaal buu u sheegay markaa ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaali wixii ku amray ilaali isna wuu ku ilaalin ilaahay ilaali haddaad ilaalisid isna wuu ku ilaalin ilaahay ilaali hortaadaad ka helaysaaye haddaad cid un wax weydiisanayso alle keligii wax weydiiso haddaad cid un kaalmaysanayso alle keligii kaalmayso ilmahan yar wuxuu barayaa inuu rabbigii ku xidho hadduu kaalmo doonayo inuu ilaahay weydiisto hadduu su'aal qabo inuu ilaahay weydiisto
ilaahay awaamirtiisa inuu ilaaliyo ilaahayna qur-aanku ku ballan qaaday badde haddaad awaamirtiisa ilaaliso ilaahay waa ballan qaaday haddaynu ilaalinno wixii uu ina faray miihaaqii reer banu israa'iil laga qaaday buu ka mid ahaa haddii innii macakum lain aqamtum الصalaaةa waataytum الزakaata waaamantum birusuli waczartumuuhum waqradtum اllaha qardan xasana ilahay wuxuu leey maciinaanahay haddii aa maxay salaada tukataan oo zakada la baxdaan oo ilaahay rasuulkiisa rumaysaan oo u hiilisaan oo gargaartaan oo ilaahay subxaanaه wa tacaala qardi xasana dayn fiican alla daynsataan idan xadiidku waa sidan unbuu la mid yahay ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaali isna waa ku ilaalinayaaye ayuha alaxiba su-aashu waxay tahay markaa risaalada nebi moxamed dhallinyaradii la socotay uu gaadhsiinayey ama qur-aanku inooga warramay dhallinyaradu ka warramay waxay rumaysnaayeenee badbaaday hadduu nebi yuusuf yahay hadduu nebi ibraahim yahay hadduu fitya asxaab ilkahfu yahay dadkaa badbaaday waxay ku badbaadeen qur-aanku dadkaa uu ka warramaya mujtamacyo gaala ah bay la noolaayeen haddana waa badbaadeen waxay ku badbaadeen waa maxay waa qadiyat alcaqiida in qofku kow caqiidadu waa miisaanka uu qofka bini aadamka noloshaba ku garto qofka bini aadamkii wuu wareersan yahay inta aanu garanin min ayna wa ilaa ayn inta aanad garanin xaggaan ka imi xaggaan u socdaa noloshu maxay tahay dunidan yaa sameeyey intaanu garanay wuu hawowsan yahay intaanu garanayn noloshu maxay macno leeday waa lunsan yihi caqaa'iddaana masaladan sharaxda caqaa'iddaa sharaxda xaggaad ka timi sharaxda xaggaad ku socotaa sharaxda maxaa dambeeya su-aasha isweydiinta le waxay tahay caqaa'iddaa ma gudbinnaa waxa labaad qur-aanku wuxuu ka warramayaa luqmaan alxakiim nin la yidhaahdo luqmaan alxakiim xikmadda ilaahay inooga soo guuriyey waxaa u weyn ilmihiisii siduu ula dardaarmay ilmihiisii dardaaranku siiyey walaqad aataynaa luqmaana alxikma baa ilaah yidhi luqmaan xikmad baanu xikmaddu waxay dhahdaan waa cilmiga oo meeshuu ku quman yahay in la dhigo waa laga yaaba inaad cilmi leedahay laakiin had iyo goor ijtihaadaadkaagu ay qaldan yihin wuxuu meeshay ku fiican yahin aanaad la helin xikmaddu bay dhahdaan markaa waa shaygoo halkuu ku qumanaa la dhigo yacni xikmaddu waa cilmi iyo taqdiirkaagoo fiican oo laysku daro ilaahay wuxuu leeyahy luqmaan xakiim baanu xikmad baanu siinay baa ilaahay leeyahy xikmaddii la siiyey maxaa ilaahay inaga siiyey waxaa laynooga soo naqliyey suurad loogu magac daro suuratu luqmaan la yidhaahdo qaabkii uu la dhaqmay wiilku dhalay yaa bunaya buu yidhi wiil yarahaygiiyow ibni oo la taskhiiriyey weeyaan yaa bunay wiil yarahaygiiyow buu leeyahy laa tushrik biاllaah ina ashirka la dulmun cadiim ilaahay haw shiriik yeelin waxbaa ku lamaanaynin keligii caabud waayo shirkigu waa dulmi dulmigu waa xaq aad cid xaq ugu lahayd oad xaqeedii dafirtay waa dulmiyo ilaahay xaqiisii baad dafirtay weeyaan laa tushrik biاllaahi ina ashirka la dulmun weliba cadiimun waa dulmi kii u weynaa markaasuu u sheegay aakhira inay jirto iyo ilaahay cilmigiisi iyo muraaqabadiisi iyo siduu u xisaabay suu dadka wax kastoo ay sameeyaan inay alla agtiisa macruuf yihiin kadib buu wuxuu ugu xegsiiyey mansilat alcibaadaat iyo waxa la farayo aqim الصalaata waأmur biاlmacruufi wanha can اlmunkari waxaa loo tilmaamay sharciga wixii kale saaraa intaa kadib baa waxaa loo tilmaamay addaruuraat alakhlaaqiya dhaqanka laga rabo ka hore waa caqiidadii ka ku xiga waa cibaadadii ka ku xigaana waa maxay waa akhlaaqdii waxaa loo tilmaamay markaasi walaa tusacir khadaka linnaasi dadka ha iska kibrinin dhulka si fiican u soco
waa qadiya akhlaaqiya. idan saddexda mas'alo ee uu luqmaan ka warramay waa in ilmahan lagu tababaro caqiide quman, waa in lagu tireengareeyo cibaadada inuu barto. ka saddexaadna waa in lagu tireengareeyo dhaqanka suuban, akhlaaq fiican oo islaamiya inuu helo. haddaba su-aasha isweydiinta le waxay tahay, waxyaabaha aynu ka warrannay iyo meeshanaynu joognaa ma is aqbalayaan? su-aasha waa taa. environmentkaynu joogno noocuu u samaysan yahi ma fahmne. innagu se mutasallixiin ma nahay? waxaynu ilmahan u gudbin lahayn ma ku hubaysan nahay? mar saddexaadkana mujaahada waxaan idhi saddexdaas baynu u baahannay, ah inaynu fahamno meeshaynu joogno iyo waxa yaalla. inaynu joogno meeshaynu inaynu fahamno meeshaynu joogno iyo waxa yaalla. ka labaadna waa inaynu mutasallixiinnay. ilmahan 8 saacadood baynu iskuulkaa u diraa. iskuulkaana ideologiga yaalla waa kaan tilmaamay. waxaan aada ula yaabaa iskuulka waxa lagu dhigo iyo waxa aynu uga warhayno innagu waxaynu u naqaanaa iskuulladu meel tacliin lagu barta inay tahy. laakiin waxa isweydiinta le waxa weeyaan, innagu waxaa wixii la loolami lahaa ee muctaqad ahaa ma dhignaa, mise ilmaha bidhaantiisa aynu eegannaa. waxaynu idhaha wallahi kaygu daroogana ma cabbo, khamrina ma cabbo, suuqa waalidana ma tago, muxuu qabtaa waaye? dee wuu iska joogaayo waxbuu bartaayo iskuulkiisu ka yimaadaa, deriskiisu akhristaa, uu ka baxa. derisku akhriya miyaad ogtay iyo waxa ku qoran internetkanu ku jira iyo waxa negoshiye doodaha ka socda iyo munaqashaad ku jira iyo waxaanu ku jiro ma garanaysa. wuxuu rumaysan yahay weli ma weydiisay. maya madrasadaan geeyaa. okay, madrasadaad geysa maxaa lagu dhigaa? alif ba alxamdu dheh, intaasu ka soo dhigtaa soo maaha? intaas gaalnimo ma ka celinaysa? dad ku wada alif iyo alxamdu. qur-aanku soo qaybo oo 10 jis hadduu kuu qaybo waxba ka celinaysaa. qur-aanka xifdigiisi wuu fiican yahi, laakiin maha wixii loo soo dejiyey in la xifdiyo. xifdigu waa meel dambe. waxaa loo soo dejiyey in la fahmoo lagu dhaqmo. waxaa loo soo dejiyey inuu qofku ku dagaal galo oo bulshada. waxaa loo soo dejiyey inuu noqdo jadwalkaagii nololeed. waxaa loo soo dejiyey waxaad rubaynayso. dunidani xaggee ka timi inaad garatid, xaggee loo socdaa inaad garatid, ilaahay jiritaankiisa inaad garatid. adigu waxaad ku kortay meel aan ilaahay muranba ka taagnayn. waxaad ku soo kortay meel aan nebi maxamed muran ka taagnayn. waxaad ku soo kortay calayhi salaatu wasalaam meel aan aakhira muran ka taagnayn. laakiin ilmahaagu wuxuu joogaa meel intaba muran ka taagan yihin. ilaahay ma jiraa mise ma jiro? nebi maxamed ma nebi buu ahaa mise nin carbeed uunoo meelihiisa iska joogay buu ahaa? aakhira ma jirtaa oo dadkan miyaa la soo saaraya? dunidan ilaahba hadduu jiro miyuu la xidhiidhaa? wax kitaabla miyuu soo diray? waa su-aalahaasi waa warka yaalla iskuullada iyo jaamacaadka iyo meelaha la tago. waa su-aalo yaalla si cadna laysu weydiiyo. ma aha xagga dambe layskama weydiiyo, xagga hore layska weydiiya. waa librariyada buwaagta taalla. every secondary school england iyo wales ku yaalla. british humanism groupku waxay hadiyad u siiyeen young atheist textbook. waxay u bixiyeen ilaah ma jiraha ka rumaysanaya yari bugaagtii u akhrisan lahaa. waa every secondary school in england and wales ayay bilaash u siiyeen. waa caqiida la faafinayo. ma alif dhebaa ka celinaysa markaa waxbaad is leedahay iyo ba'a dheh. yani ilmaheenna miyaynu wax barray mise waynu canaananaynaa un hadhow? ayuha alaxiba, meesha aynu ku nool lahay main streamka iyo xooggu haysta markaynu ka nimaadno innagu 3 wax baynu haysannaa. waxaynu haysannaa guri
madrasad iyo masaajid. guriga iyo madrasad iyo masaajidku ma u dhigmaan mainstreamka waxa ka socda? ma difaaci karaya? waxay ahayd madaaristeennu inay yeelato maxay? macallin qualifyda, manhaj caqiidada tan iyo waxa kan dhigaya, mabaadi'dan aynu ka warramayno dhigaya, oo gaalnimada qofka ka difaacaya, waqti ku filan inuu u baahan yahay inuu qaato ardaygu, meel ku filan inuu wax ku dhiganayo. mayaynu leenahay intaa? maya, ma lihin weeyaan. waayo innagaan saacidaynin. su-aalaan idin weydiiyo, carruurtiinna markaad rabtaan inay mathematicska iyo physicska ku fiicnaadaan maxaa samaysaan? tuushan baa geysaan. tuushanka maxaa ka bixisaan? saacaddii misaa bixisaan? okay, per an hour hadduu 2 saacadood dhigto £50 £60 say u kala jaban yihiin, meelhaasaa laga qaadaa soo maaha? okay, waxaad ogoshahay xisaabtan £60 lagu dhigto 2 hours kasta. waa 2 hours hadda maaha bishii. hadduu wiig kasta 2 saacadood qaato imisaad bixisaa? waa 4 meeloodoo min 6dana soo maaha? 240 baad xisaabta ka bixisaa. imisaad u ogoshay inuu caqiidadiisa ku dhigto? 20 pound oo muran ku jira soo maaha? wadaadada iyagaan dadka waxba baraynin. haddaad u badatana 20 pound waad bixinaysaa. waxaad rabtaa isagoo inanku xisaab soo dhigtay ayaad rabtaa inaad xisaabta yaro gaadhsiiso uun. inaad xisaabta yaro gaadhsiiso 240 baad u ogoshay. mid lagaba hor taaganyana waxaad rabtaa inaad ka hor tagtoo tidhaahdo waa inuu qaataa caqiidadan iyo diinta tan. laakiin waxaad rabtaa 20 pound inuu ku barto. that's not logic. macquul maaha. waxaad leedahay macallinka madrasada jooga qualified maaha, ama af ingiriisiga ma yaqaano, ama masaa'ilkan ilmaha kale ma doodi karayo, ama caqiide fiican ma dhigi karayo. dee adaa samaysan kari lahaa haddaanad adigu rabin macallinkaad rabtay, manhajkaad rabtay, waxaad rabtay haddaanad adigu maal gashanaynin oo samaynaynin. tuushakaa rag baa samaystay, adna waxaad ogolaatay inaad lacagta ka bixiso. darfar wuu jiraa. laakiin waxaad rabtaa caqiidada iyo diinta iyo afkaagu inay noqdaan waxa ugu dambeeya aad ka fekerto. the last thing aad ka fekertaad rabtaa inuu noqdo. waxaanad u arkayn inuu qiimo leeyahay, ama waxaad u aragtaa inuu automatic yahayoo d n adiisu inay sidaabaad moodaysa. mar hadduu kuu ekaaday de inuu soomaaliya had moodaysa. waxaad se leedahay waa kan aad dhashayoo de waa nin soomaaliyeed ee xagguu ilaahma jirida ka keenaya waxaanad sheegayso. war meeshaanaad keentaa waxaana yaalin. waxaan leenahay markaa madrasadeennu haddaynu rabno ubadkeena inay badbaadaan waa inay gaadhaa halkii aynu ku qanci lahayn inay badbaadinayso. waxaa gaadhsiin kara innagoo ka tashanna, innagoo isweydiinna. lama waayayo qof cilmi leh, lama waayo manhaj cid qorta, lama waayo macallin qualifyda. waa la train garayn karaa macallinka qualifyda. waxaasoo dhan lama waayayo. laakiin waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin maxay? talo iyo investment bay u baahan yihiin. laga yaabaa kolba macallinka fiican uu nagu meel gaadhay iska tagaa, dee uu iska tegaya haddaad shaqo kuu dhaanta u helo. laakiin wuxuu kuu joogayaa hadduu ogyahay shaqadaadu mid macquula inay tahay, dan wuu xoogsanayaa ugu yaraan haddaanu diinba ka fekerin. wuxuu arkayaa inay tahay shaqo macno samaynayso oo saacaddiiba lacag lagu qaadanayo. hadduu meesha kale u tagaba saacaddiiba waxbaa la siinayaa. tanna wuxuu arkayaa saacaddiiba haddii wax lagu siinayo you can do. waxaa laga yaaba inaad tidhahda haya lacagta intaa leeg xaggee laga helaya? dad kaleba waa helaa. halay baan qolo ku lahaa. waa koofigoo iska daysaan baa ku filan. koofiga ma ka maarantaan ilmaagu inuu diin helo daraaddeed? yani haddaynu idhaahno 100 kun oo qof baa london degan haddaad tidhaahdo, 100 kun oo qof oo soomaaliyeed haddaad tidhaahdo, hadday min kun pound bixiyaan waa imisa? waa 100 milyan. 100 kun oo qof hadday min kun pound bixiyaan waa 100 milyan. 100 milyan wax maynoo qaban karaan? macallinkaynu rabno, iskuulkaynu rabno, islamic school haddaynu rabno, waxaynu rabno maku samayn karnaa. oo see laakiin 100 milyan loo helaya. waa 100 kun qof oo aqbala maalintii
koobka kofiga uu ka cabo meelahaasi ee 3 pound inaad ka tagto 3 pound haddaad maalintii bixiso oo imisa waa 9 pound bishii 12 ku dhufo waa 180 pound kofigaad cabtaabaa intaa jooga sanadkii markaa ma quuri karnaa inaynu koofigaynu cabno ilmaheenna ku badbaadinno masalan ay awoodda inaynu ururi karno wax wada qabsan karno qadiyadu baciid maaha waayo diinta ilaahay wuxuu leeyay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay dadka ma faro waxaanay awoodin idan wax kastoo sharciga ku qorani waa taxta taaqati alinsaan waa wuxuu bini aadamku awoodo wax kastoo ilaahayna faray waa wax bini aadam awoodo laakiin marka aanad rabin shayga inaad samayso ad odhanaysaa dee ma awoodi karno maxaan sameeyaa dee waana laga tira bato waxba ma haysano dad foqoraa baanu dawlad ma lihino dawlad ugama baahanin ubadkaagu dawlad uma baahna aduu kuu baahan yahi ubadkaagu aduu kuu baahan yahi nin kale uma baahna waxa jeebkaaga ku jiraana badbaadin kara taa kaleba sidaad u invest garaysay unbaad tanna u invest garaynaysaa then you can do waad samayn kartaa xaafad kasta cidda degani way samayn kartaa markaa waa haddii maxay haddii aynu tan diidno waddo quroo kalaa bannaan waddada kale bannaani waa maxay ma in la gaaloobaabaa maya marnaba bannaa waxaa bannaan waman yuhaajir fii sabiili illaahi ayaa bannaan inaad ka tagta meeshaa bannaan marka adiga iyo carruurtaaduba oo meel ay diintooda ku ilaashadaan haya tacliim baan oolin haya gaalnimaan oolin xagga tacliintaas ka maqnaato geeljiro muslimaa kuu dhaama injineer kaafir bilaahiya miyaan ka ahayn war injineer aan ilaahay rumaysanin xataa adiga wax ku tari maayo xataa taa adduunka haddaad ku xisaabiso wiilka eetiistka miyaad u malaynaysaa in ku soo biilinayo war xataa haddaad ku xisaabtato tan dunawiga ah waxba kuma aha idan inaad qofkan qof ka dhigato waad invest garaysato oo mustaqbal kuu noqdo waxay ku xidhan tahay sida aad wax u samayso idan inagu saddexdaas shay baynu haysannaa midi waa madrasadda midina waa masaajidka masaajidkeenu inuu mustawahaynu u baahanay yeesho culammada joogta hadday training u baahayn inaynu train garayno hadday af ingiriisi u baahayn inaynu barro hadday macallinimo kale u baahayn inaynu barro haddaynu sharci u baahayn inaynu barro everything waa samayn karaynaa wax bini aadam sameeya inaan samayn karayni ma jiro everything waa samayn karaynaa masaajid waa dhisan karnaa waa dad aqoon-yahana waa keeni karnaa waa u tababari karnaa waa u diran karnaa waa la samayn karaa idan waa madraso iyo masaajid iyo guri dhisan aabbiya hooye iyagu kala cararayaa ilma ma badbaadinayaan soankaa maha odaya islaam war wada jooga loogu taaga la'yi oo separation iyo waystil iyo waa isqabanayo waa kala tagnayo baabkaasi wadaa iyana waxba badbaadin kari waayaan islaan 10 carruura ama 7 carruura ama 5 carruura tuurta ku sidataana meel la geyn mayso iyadaa carruurta iga qaadatayna war noqon mayso aakhira saa ku badbaadi mayso iyadaa carruurtii la tagtay iyo islaan 7 wadataa carruur badbaadin waxaasina ma jiraan guri dhisan baa wax badbaadin kara aabbiyo hooye wada jooga oo wada dhaqda carruurtan oo garta carruurtan mustaqbalkeeda gurigu waxaa asal ku yahay التشجيع والمحافظة isaga markaa looga baahan yahay inuu dhiiri geliyo carruurtanna ilaaliyana inuu dhiiri geliyo diintooda iyo dhaqankooda iyo afkooda iyo waxooda dhan ku dhiiri geliyo ilaaliyana intuu ilaalin karayo uu wakhtiga iyo hantidaba ku bixiyo waxaynu u baahannahay inaynu yeelanno muntazahaad meel carruurta ay u fasax tagtoo tagto waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo war meel fogba maaha meelahan london iyo agagaarkeeda waxaa ka helaysaan mukhayamaad meelo cambing lagu sameeyo oo la dego maa mashkila inta carruurtoo dhan isku dartaan teenagerskiina iyo wixiina inaad 7 ama 10 casho meelay soo degaan kubad soo cayaaraan wax kala soo cayaaraan lecturesna lagu siiyo diintooda la baro afkooda la baro dhaqankooda la baro dhanka kalena ay ciyaartooda ka wataan ay fasaxooda joogaan 10 maalmood oo halka u fasax tago 10 maalmood soomaalida yurub joogta badh baa sameeyey waxaan garanayaa rag almuntazahaadkaa beri ugu imi oo dhaforada xirxiraayo
imtixaannaa oo masaajidka culamaa baan u imi mujarad toddobaadkaa ilaahay ku hagaajiyey uu dadka muslimiintaa la joogay oo culammadu la joogtay wax loo dhigay wax loo sheegay wax loo akhriyey oo hadda culamaa ah oo wax sheegayo oo masaajid jooga oo aynkan u jooga waa muntazah yaroo dhallinyarada tani wuxuu helayaa meel ku tanafuso kubad buu heli farduu fuuli cayaar buu ordi wax buu samayn doonaa 6 hoursna wax buu dhegaysan doonaa wax buu dhigan doonaa waxaa laga yaabaa sanadka dhan waxaad u dhegaysan in toddobaadkan ay ka xoog bataan oo maskaxdana uga refreshment badan yihin maskax cayaartay oo faraxsan oo ordaysa dad collective oo wada jooga wax wada baranaya wax kala dhegaysanaya wax soo akhrinaya isku da'aada idan waa waxaad samayn karto waxaa laga yaabaa inaanay 200 pound iyo wax ka badan idin kalifin 700 pound hadday ugu badato inuu ilmahaagu tago waa fasaxu ka sheekayn doono idan waxaan leenahay waxa kani waxay u baahan yihiin caqli inaynu ubadkeenna badbaadino ilaahay baryadiisa iyo waxaasoo dhan oo rumaysanay laakiin waxay u baahan yihin inaynu juhdi ku darno waxay u baahan yihin inaynu isticmaalno maxay caqligeenna iyo awooddeenna soomaali dad badan oo culamaa baa ku jira waa leeyihin culamo waa leeyihin aqoon-yahano kale waa leeyihin wax kastoo looga baahdo soomaali gudaheed baa laga helaya intiina london joogta gudaheeda ayaa laga helayaa wax kastoo aynu u baahan nahay laakiin waxa weeyaan waxbaan inaga dhaxaynin nolol baynan wadaagin waxbaynan wada samaysan karin waxbaynan wada lahaan karin keenna ugu caalimsanee carruurtiisa markaa kama adkaan karo ahobaltaasi waayo wakhti ku filanna u heli maayo wax master no all isagu ma aho jack of all trades wax kastana garan maayo duu wax garanayo wax kaloo aanu garanayno badan baa jira laakiin haddaynu wax isku darsanno oo wax wada qabsanno oo wax isugu nimaadno waa heli karnaa inaynu wax samayn karno laakiin idinku waxaad rajaynaysaan beriga kobi isu noqotaan inay wax samaysataan war ma jiro dunida bini aadamku kobi qofka kale maankiisu uu la mid iyo isku wada nooci ma jiro human beingku saasuu differenceka u leeyahy u kala gedisay u kala aragtay laakiin masaalixay wadaagaan baa jiro ay garanayaan inay wada ilaashadaan masaajidkan shaqu haya aynu maanta joogno masaalixaynu wadaagno masaajidka ku haysanaa jira waxaan rabnaa inaan ku tukanno inaan weyse ka helno inaan musqul ka helno salaadaha inalooga addimo wakhtigaa inaloo furo intaa haddii lay qabanayo maxaan ka rabaa ma inaan anugu taliyaabaan doonayaa intaa haddii lay qabanayo waa inaan invest gareeyaa inta haysaa ku filan mise nimanba afduubtay baynu idhahnaayo meeshu waa dictatorship oo 5 nin baan cidnaba u ogolayno haddaynu idhahno meel walba cid ba afduubatay meel walba waan loo dhammayn cid kuma wadi karayso bini aadamku saa uma noola sidaa uma noola bini aadamku waxaan anigu eegayaa maslaxaddaydima ku qabaa meesha tan maslaxaddii aan ka rabay masaajid maxaan uga baahnaa madrasad maxaan uga baahnaa markaanan maslaxadda ku qabin waa inaan ka hadlaa markaa idhahda masaalixdaas aynu samayn karnaa ama waa lay raysan garayna waxa la odhan resourcekaa nugu yar macallimiintaa nugu yar lacagtaa nugu yar waxan baa nugu yar marka waxaan odhan doonaa aynu ololayno oo waxa kan samayno oo waxaasaynu u baahanay qabsanno laakiin aan maamulo haddii kale wuu dumayaa anigu aan ka taliyo haddii kale ma jirayo qabiil hebel baa u badan qabaa'ilka kale ma iman karayso war qabiilka waa u ducaynayna hadday meelaan wax ku baranno noo sameeyaan maxaa qabiil hebel hadduu masaajidka ba dhiso oo ku idhaha carruurta kee waa u ducaynaynaa weliba ha iska haystaa waayo anigu wixii aan rabay baan ka helayaa masaajid waxaan ka rabaa waa intaa waa in haddii ders laga akhrinaya aan ka baran karo salaadayda inaan ku tukan karo meelaan ku weysaystay inaan ka heli karo ilmahayga inaan keeni karo haddaan intaa ka helo qabiil mooyaane cidduu doona ha ahaado ama reer quri ha lahaado ama reero badan ha lahaado dad wax weyn maaha idan waxa weeyaan waxaynan fahmin weli war maxaa masaalixdeena ku jirta maxaa dantu inoogu jirtaa saynu u wada noolaan karnaa saynu ilmahan u badbaadin karnaa haddaynan taa garan laba wadoo qura hortaada taalla mid saddexaadoo adigu soo helaysa anuu garan maayo labada wadee hortaada taalle waxa weeyaan mainstreamka inaad toos ugu biirto ama aayar ugu biirto aday ku jirtaa mainstreamkaasi wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu ku dhaqmayo inaad ama maalin qura albaabada furatid oo tidhaahdid
waa iskaga biiray amase adigoo arkaya inaad maalinba gobol ku dhinto maalinba inaanay kaa tagto maalinba inaan kaa tago maalinba adiga iyo islaan 60 jir inaa marka dambe iska soo horjeesataan dabeetana aad tidhaahdo way tageene ilaahay un meel roon ha geeyo inaad ka daba tidhaahdo kaasi waa waddada kalena waa inta dee dhowdahay inaad iska tagto meesha aad qabatid wixii xabadi dilaysana ha disho wixii noolaadana kuwa noolaada meesha joogay la mid noqonayaan kaasina waa waddada saddexaad ee qura kuu bannaani waa taa in aad madaaristaada iyo masaajidaada iyo macallinkaaga iyo waxaagaba maal gashatoo yeelatid waddo saddexaad ma jirto marka ayaynaan isku xiijinin maalin walba muxaadara laga soo diraa la yidhaahdo tarbiyada carruurta ka warran dee maxaan tarbiya ka warramaa waalidka ama tarbiyaysnayne tarbiya maynu ka warrami tarbiyada carruurta ka warran badbaadada carruurta ka warran waxaa ka warran dee war wax ma taro carruurta caynka maala yala ka male waxba ma tarto askari ka warran haddaad tidhaahdo waynu wacdinaynaa markaa askari ha noqdo yuu noqonaya dad maanta o dhan tidhahdo askarinimadu waa wax adag dagaalka marka la galo waa la sugmaa lama cararo dee haraad iyo gaajaa dhici dooneen waa la adkaystaa waxaa kuma adkaysto laakiin wuxuu u baahan yahay in la geliyo maxay tadriib ah gaajo iyo habaar inuu galo oo dhibaatoodo dabeetana kadib uu yeesho kartidaasi innagu waxaan u malaynayaa xilligii hadalka soo dhaaftay soo kortay hadda waa soo kartoo soomaali badan oo eetiisaa joogta waa soo kartoo dhallinyaro badan oo luntay xalay baa sheekhu wax wacdinaya wuxuu lahaa mararka qaarkood maas idhahdaa buuhi kuwa jaamacaadka jooga war male kuwa xabsigaaba ka roon waayo kuwa xabsigu malaa ilaahay bay rumaysan yihiin ee akhlaaqduma ka xumaatay laakiin kuwa kan diinta ka luntay jaamacad badan dadka jooga ma odhanayno dadkao dhan dad fiicani waa ku jiraan meel walba laakiin waxaan ka warramaynaa un xaggaynu u soconno trendku dhanku uu sii socdo in badanna canaanan maayo waayo waxaynan ku shubin baynu ka rabnaa inay gartaan waxaynan u sheeginba ayaynu rabnaa inay gartaan si u garanayaa ilmaha nebi maxamed lama barin oo ilaahay lama barin oo waxba lama barin waxaa la baray alifdha oo ba'dha iyo alxamdu qayb iyo faatixo qayb intaasaa la baray marka waxaanad adigu u sheegin haddaad ka rabto inuu noqdo dee suurtagal maaha wuxuu noqonayaa waa inuu noqdaa waxaynu ka rabnaa waa inuu noqdaa waxaynu sheegnay markaasaynu calaacali karnaa odhan karnaa waxbaa dhacya kama wixii waxaynu dhignay waa inuu noqdaa ilmaha waa inaynu caqiidadiisa barray waa inaynu salaadiisa barray waa inaynu dhaqankiisa barray waa inaynu afkiisa barray af soomaaliga dadku iska yaraystay soomaaligu ma aha wax yar waa qofka oo aad ka saarta daa'iradda soomaaliga af soomaaligu aad beri weyda wuu ka baxay soomaaligu dhaqan buu sidaa diin buu sidaa culture buu sidaa dal buu leeyey dad buu leeyey meel buu ku xidhayaa qofka hadduu intaa waayo intaasiba waa ka lumaysa adigu weli waxaad u yaro hiloobaysa haddaad waxesho waddankii baad ku isagu abadan inuu hiloobo hadduu afkaa waayo abadan inuu waxba ku falo idan afkiisa iyo diintiisa ciddii bari lahayd waa innaga marka darsiga waxaa laygu yidhi waxaad ka hadashaa see ilma loo badbaadiyaa laakiin garan maayo anigu si kaloo loo badbaadiyo aan ahayn in wax la baro si kaloo loo badbaadiyo aan ahayn in wax la baro garan maayo waxbaristaan ka hadlayaana ma aha alifba iyo qur-aan la xifdiyo ma aha ee waa dadkan diintoodii dhaqankoodii afkoodiiyo si fiican loogu dhigo ama islamic school dhammaystiran la yeesho ama la yeesho qayb diineed oo dhammaystiran oo qofku uu siduu kan kaleba u dhiganayo uu u dhigto oo uga soo baxo haddaynu taa samayno rajo waa leenay soomaalidu waa dad creativity leh waa dad intelligenta intaan ka ogahay dad caqli badan laakiin waa dad sabir yarna inay wax wada lahaadaanna dhib ku tahay waa laba ceeboodoo runtii aada u waaweyn waa inaga muuqata wixii waynu doonaynaa sida aynu u samaynaynana garan mayno bal haddaba aan dib isugu noqonno dib u xisaabtanno oo meeshan haddii aynu rabno inaynu sii joogno muslimna ahaano waxaasay u baahan taye berri ha sugin
maanta inaad ka fekerto sidii wax looga bedeli lahaa. sala allahuma calaa muxamedin wcala ali w saxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.